بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ku faraxsanahay inaan soo booqdo xafiiska xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliland oo waxa weeyaan soo booqashadaydan ay ugu wehelnayay agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland kulay xafiiska xiriirka kubadda cagta uu leeyahay waa mid aad iyo aad u wanaagsan oo wax badan aan intii yareeyeen soo booqdeen ka bartay xiriirka kubadda cagta ee deegaanku leeyahay kulay wax badan xaggan aan ka barano way jiraan wax badan oo annagana laga bartano way jiraan annaga nidaamka dawladnimo maadaama yar xoog badan yahay dhinacyadaas aan kaga fiicanahay inta badan iyo waxyaabaha maaragtay aqoonsiga si fudud in loo helo haddii tahay imika tababarada kala duwan si fudud in loo helo FIFA iyo kuwa CAF idinkuna waxaad naga fiican tihiin qaabka wax loo habaynayo kulay horyaaladii ama liigagii kala duwanaana already idinku aad leedihiin haday gobolada noqoto iyo haday kuwii nationalka noqoto xogtooda qaabka loo habaynayo waa mid aad u fiican oo soo arkay haday noqoto kooxaha ciyaaraya koox kasta yaa qaatay huruud yaa casaan qaatay xog ciyaar kasta maanta dhacdo xogteeda qaabka aad u waxaynasan waa mid aad u fiican waxaan nii haro kaliya oo arkaya digitalized in laga dhigo laakiin manual systemka aad u develop garaysan waa mid aad u fiican heshiisyada ama kala iibsiga ciyaartooyga qaabka loo diiwaan gelinayna waa mid aan aad ugu bogo waxyaabaha dhibka naga haysta inta badan ciyaaraha gobolada ayaa anaga ugu culus ciyaarahan qabano markay dhacaan xogta qaabka loo qorayo qaab waraaqa hawada socota hadii lagu qoro hebel baahiye laakiin inta system maaragtay database inta la sameeyay laakiin book inta loo sameeyay qaabka loo qoro waa mid aad iyo aad aan ugu bogay xiriirka kubadda cagta isbedelka uu keenay hadda ay muuqdana waa mid ay waxa weeyaan ku garab taagan tahay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland oo agaasimaha guud iyo wasiirkaba uga mahadnaqayo inay maaragtay xiriirku heerka u gaaro shalay markii la dooranayay annaga garab urdano taakulin maanta annaga waa 10 ka baranna waa mid aad iyo aad u wanaagsan meesha xirfadle iyo rag kartila markay isku yimaadaan wax badan baa la qaban karaa ragga ay hor fadhiya waxa weeyaan salay sheego ciyaartooyadii hore xirfadda waxa weeyaan ciyaartu kuma cusub qaabkay u maamulayaan qaab waxa weeyaan xirfadaysan ama cilmiyeysan bay noqonaysaa marka annaguna xiriirka kulli hadda waqtiga u dambeeyay doorashadii u dambeysay xiriirkii ku soo baxay oo ahaa xiriirkii ugu horeeyay doorasho ku soo baxa awal waan magacaabi jiray oo daqal dambe ahay isbedel badan ay wadaan ayaa jira isbedelkaas laba shay uu yeelan doonaa mid waa mid ay iyagu idinka niga faa'iideystaan midna in iyaga laga faa'iideysto oo in ay keenaan tababaro kala duwan oo heer caalami ah iyo kuwa waxaan heer maaragtay qaaradeed ah intaba inay keenaan inooga faa'iideeyaan tababarkii imka ugu horeeyay garsoorayaasha waxa weeyaan Soomaaliland 10ka ay ka mid ka ahaayeen Ethiopia lagu qabanayay mid waxay ahaayeen anagu taakuleyn maan ku keenay xiriirka kubadda cagta dawladda deegaanka Soomaalida ayaa kharashkiisana sponsor gareynay waxa weeyaan initiative-keeda horan lahaa anagu si guud ahaaneed inaan hawsha facilitate garayno mooyaan hadda waxa weeyaan hawlo badan oo soo socda ayaa jira kulli maalmood waxaan ka imid ciyaarihii bariga iyo bartamaha Afrika ka socday Bahardar waxaan isku aragnay guud ahaan maaragtay dadka Soomaaliyeed ee wadanada kala duwan ka yimid ee ka mid ah xiriirada kala duwan haday noqotay CAF iyo haday noqoto CAF iyo FIFA insha Allah waxaan rajaynaynaa in dawladda deegaanka Soomaalidu uu noqdo meesha fursad fiican dawladda deegaanka Soomaalida annaguna waxaan rajaynaynaa san halbowlaha iyo bu'da Soomaaliyeed ugu naalo inaanu noqono meesha maaragtay xiriirka kubadaha iyo xiriirada kale duwan iyo ciyaaraha guud ahaaneedba meesha la iskaga xidho waxaan rajaynayaa kulay pillarska xafiiskayga ugu waaweyn mid buu ka yahay xiriirka maaragtay diblomaasiyadda ciyaaraha ama dhalinyaradu in maaragtay wax badan laga qabto taas qayb ay ka tahay hadda waxa jira kooxo Soomaaliland oo dawladda deegaanka taga ciyaar xiriir maaragtay ciyaar saaxiibtinimo soo wada yeesha dhalinyaradeedii ba xaggan ka ciyaarta queenii ba xagga ka ciyaara dhalinyaraduna inay faa'iido ka hesho xirfadda ay ku ciyaarayaan ba muhiim ma aha madadaalo iyo maararow in la noqoto imika qayb ahaan dawladdu dhisi kartaa laakiin dhaqaalaha waxa laga helaa waxa weeyaan ganacsatada taana ganacsatada Soomaaliland waan ugu mahadnaqayaa gaar ahaan ganacsatada sida gaarka nii garab taagan ganacsatada insha Allah waxaan rajaynayaa inaan mar soo kaxeeyo bal aan arko waxa ay ganacsatada Soomaaliland ku deeqday mid iyo laba hadaan soo rag kale ku dayan doonaan kulli intaan joogay wax badan baan ka bartay waxaan rajaynayaa xiriirka maaragtay dawladda deegaanka Soomaalida
gaar ahaan xafiiska dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad deegaanka iyo wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland inuu hormuud ka noqdo xiriirka labada wadan ee Itoobiya iyo Somaliland maaha kaliya dowlad deegaanka iyo fadlayaasha haddii la yiraahdo waayo maanta garsooraha Somaliland ee Itoobiya lagu soo tababaro bariima haddaan u baahdo waan u yeedhan turjumaanna uma baahna ciyaartooyga markuu ciyaarsiinayo isfahanna uma baahna kale waa laba noo wada dhashay isku lahjada isku diina isku dhaqana wax ay kala duwan yihiin mala marka inaan tababar waxa weeyaan garsoorayaal ama xirfadlayaal kale oo Somaliland aan Itoobiya uga helno annaga faa'iido gaar ah inoo tahay waxay la mid tahay in reejigsiga xirfad iyo tababar uu noo qaatay marka insha Allah tababarada xigana waxay noqon doonaa kuwa FIFA youth referee inaan ku guuleysano kulli waan ku guda jiraa qaybahan hadda inoo dhamaatay waqti dhow in kaana waxa weeyaan intaan joojiga keeno Somaliland iyo geeyga Soomaalida kaleba si fudud looga faa'iideysan karo waxa kale oo xigi doona waxaan hadda dhisnaa dhismeediina wadnaa lacag badan dawladdu noo qabatay xarunta academigeed sport academic oo aan ka dhisano magaalada Qabri Beex sport academigaasna waxay noqon doontaa xarunta waxa weeyaan kulliyadaha ciyaaraha geeyga Soomaaliyeed saan rajeynayo xirfadlayaasha Soomaaliyeed ee dunida kale ku nool si gaar ah noo soo dhaweynayay iyo xiriirka kubadda cagta oo ugu horeeyay maaragtay madaxweynaha xiriirka kubadda cagta Somaliland iyo guddigiisa fulinta iyo xubnaha kale waxaan rabaa ugu dambeyn inaan si gaar ah ugu mahadnaqo labadan astaamood ee horteyda yaala oo qayb muhiim ah ka qaatay ciyaaraha Somaliland iyo ciyaaraha Soomaaliyeed bas guud ahaan inay hormaraan insha Allah waxaan rajeynayaa kulli anaga waxaan ugu dhiiriyay inaan isbedel ka keeno ciyaaraha deegaanka qayb muhiim ah ay ka yihiin waqtiyada soo socdana waxaan rajeynayaa sida geeyga maaragtay Soomaalida kale uga hawl galaan inay dowlad deegaanka iyo Itoobiyada kale uga hawl gali doonaan hawsha barbilowgeedana anaga qaadan hadii la yiraahdo aad iyo aad waan ugu mahadnaqayaa iska iyo True Cable labadaba aad baad u mahadsantihiin